السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal meel kasta oo nagala socotaan waa mar kale iyo barnaamijkii arrimaha bulshada oo TV-ga qaranka uga barateen inuu toddobaad walba mar idin ka soo daayo xaruntiisa magaalada London. barnaamijka arrimaha bulshada daawadayaal mar walba waxa ay dadweynuhu xiiseynayaan ama aan isleenahay dadweynuhu maanta waxay u baahan yihiin inay waxa ogaadaan ayaan idinku soo deynaa. haddaba caawa maxaan idinku haynaa? waxaan idinku haynaa urur ka mid ah ururada reer Somaliland ee u xaytay inay dalkooda caawiyaan. waxaana barnaamijka nagala qayb qaadanaysa Saafi Faarax oo ah afhayeenka ururka qurbad joogta reer Somaliland ee qaaradda Yurub. ahlan wa sahlan Saafi, soo dhawow. waad mahadsantahay walaal aad iyo aad baan u dhawahay waanan ku salaamayaa aad iyo aad baan kuugu mahadnaqayaa sida sharaf kale aad nooga soo qayb gashay barnaamijkaaga waanan salaamayaa dhammaan telefishinka qaranka shaqaalihiisa oo dhan aad iyo aad baad u mahadsantahay waanan dhawahay. Saafi, marka hore aad iyo aad baad u mahadsantahay sida wanaagsan ee barnaamijka noogala qayb qaadatay. adiga mudan. haddaan barnaamijka guda galno, ururkiinu urur hore u jiray ma ahayn oo in badan bidday Somaliland 22 sano ay jirtaa oo dadka reer Somaliland ay qurbaha joogeen, laakiin waa urur dhawaan la sameeyay sanadadii ugu dambeeyay. ururka qurbad joogta reer Somaliland ee qaaradda Yurub goorma la aasaasay, muxuu qabtaa? walaal waad mahadsantahay. ururkan waxa la aasaasay dabayaaqadii sanadkiina soo dhaafay. waxa waa runa hore uma jirin ururo badan oo way jiraan dalkan UK iyo Europe ka shaqeeyo reer Somaliland oo in badan jiro 20 sano Somaliland jirtay bay jiray. sax. laakiin runtii dadka ururkan fikradiisa lahaa ama de sameeyay waxaan dad aad ugu soo dhex jiray arrimaha bulshada reer Somaliland. waxyaabo fara badan ururo badan ka soo mid noqday de xoogaa in badan ku dhex jiray arrimaha bulshada reer Somaliland. markii ay dareenay in codka reer Somaliland aanu voice-kooda codkooda aanu de burnayn ama aanu isku xidhnayn ayaan dareenay ayaan nagu kaliftay inaan ururkan sameeyno si professionalska especially reer Somaliland dadka bulshada u shaqeeya dadka khibradda leh dhinac kastaba de professional ka noqday in ay u baahan yihiin meel ay isugu yimaadaan oo ay fikradooda iyo skillskoodaba isku keenaan si ay awoodoodu ay awood u yeeshaan. de Yurubna sidoo og tahay aad iyo aad waa meel de awood gaara leh. arrimaheennana inta badan UK de way la socdaan reer Somaliland maadaama oo bulshadana aynu la noolnahay wada citizen aynu nahay oo daan British citizen ahay European citizen fara badan jiraan. sidee baynu bal maxaan dhahdaa portugal jiritaankeenii yes itraafkii insha Allah way imanaya ilaahay baana og goortu inoo imanayo laakiin waan rajeynaa inuu si dhaqsaana ugu yimaado. laakiin horta bal Somaliland sidee baynu bal dadkan aynu la joogno aynu uga dhaadhicinaa wixii aynu ka baranayna iyo khibradaheennina intaan isugu keenno waddankeenii sidee baynu wax ugu qaban karnaa. taasi horta fikraddii ugu horeysay ay ahayd. waxaanu launch garaynay la launch gariyay ururka bishiina soo dhaaftay October. intii waxaanu qabanay sanadkii hore 3 shir meelahaas waanu sameynay oo dad fara badan isugu yimaadeen. Somaliland de sidoo og tahay waa wadan weyn. dad badan oo kala shaadaba degan qolooyin fara badan regionada reer Somaliland way fara badan yihiin. markaas sidii aynu bal UK oo kale ama Europe sidii reer Somaliland ay u helaayeen platform ay isugu wada yimaadaan oo ay isku wadaarsadaan fikradaha. yani waxaad ka wadaa gobolada reer Somaliland meel ay ku midoobaan ay fikradahooda isku wadaarsadaan. runtii ilaa halkan gurigeennii ma ahay meesha lagu dambeynaya waa gurigii sidii wax loogu qaban lahaa Somaliland wada jirna loogu shaqeyn lahaa. maxaan idhaahdaa haddii aan idhaahdo de dantaa guud ay naga wada dhaxaysa danna waa dan gaaro qofka de u gaara oo isaga iyo familigiisa iyo dadkiisa ku kooban. danna waa dan naga wada dhaxaysa marka dantaa guud sidee baynu wada jir u arki lahayn wada jirna ugu qaban lahayn in terms of development kana wadanka calashaan maxaan dhahdaa developmentkiisa sidaynu uga wada shaqeyn lahayn waayo dee Somaliland way naga wada dhaxaysaa qof kaliya ma laha.
waxaanu ka qayb galnay dhowr shiro iyaguna Yurub ah oo Yurub oo iyaduna dhowr wadan oo Yurub oo isu yimi oo iyaguna sidaas oo kale doonaya awoodoodii inay meel isugu keenaan shirkaasoo Belgium ka dhacayna la keli waanu la kulannay kaana waanu ka qayb galnay maxaan idhahdaa dee kolay dhaqdhaqaaqan dambe ee imika movementkan Somaliland imika dhex socdaa dee waaba ka fikradii ku yimaadeen sidee baynu bal Yurubun baynu baarlamaankeeda u tegi jirnay sidee baynu baarlamaanka Yurub Somaliland baarlamaanka Ingiriiska baynu u tegi jirnay Ingiriiska baynu had iyo jeer hor istaagi jirnay iyo maxaan dhahday dee number 10 iyo dariiqa yar ayaa laga dul dee ayaa sheekadeena xoog laga haya laakiin Somaliland awoodeeda baaxadeeda bulshadeeda sidee baynu Yurubna bal this time uga muuqanaa taana alxamdulillah waa lagu guuleystay tafarkada dad badan oo isku dardarsaday bay ahayd imikana initialka waxa qaatay Yurub 4 wadan oo Yurub oo isu yimi dee reer UK-na inana inaynu xoojino weeyaan oo insha Allah 12 bisha waa ta ka dhacaysa Brussels dee kolleyba waxaan isleeyahay waxa kale oo aanu waxqabadkayagii doorashadiina wanaga ka qayb galnay صح تاوين وين usoo soconaa tan aad tiri inaan soo hordhigno qaaradda Yurub qadiyada Somaliland ma oran karnaa ururkiinu salka wuxuu ku hayaa siyaasad kollayba siyaasadi kama maqnaa oo siyaasadii way soo gelaysaa laakiin dhinaca development-kan anagu u badannahay xagga siyaasadda yes Somaliland qadiyadeedii ma aha only group of people kama mara dhalin karaan xataa dawladdu yes dawladdu way dee ka shaqaynaysaa oo habeen iyo maalinba iyaga 100% u taagan inay qadiyada Somaliland dee ka mara dhaliyaan laakiin runtii imika sanadahan dambe especially sanadkan ugu dambeeyay waxaanu leenahay halkaynu ka geli karnaa as a diaspora qaybtee baynu ka qaadan karnaa marka kolleyba siyaasaddu halkaa maybe inay ka soo gelayso laakiin ururkaygu wuxuu u taagan yahay development iyo sidii bulshada reer Somaliland xagga waxtarka waxa loo iyo caawimada samafalka maadaama ururkiinu iyo ururka qurba joogta reer Somaliland ee qaaradda Yurub ma ku leedihiin xafiisyo wadamada kale ee dalka Yurub Ingiriiska aan ka ahayn waxaanu imika noo jooga Faransiiska waxaanu noo jooga representative wali xafiisyo maanan ka furin laakiin hadda nimku tala jirnaa in Belgiumka iyo Faransiiska iyo Hollandba aanu dad baa noo jooga oo guddi baan ku leenahay insha Allahna waxaan rajeynaynaa inaan halkaan xafiisyo ka furano as well as UK oo dhan waan taraygaraynaa sidii aad uga furan lahayd haddaan wadankii eegno ururkiinu wadankii quwad inta la eeg buu ku leeyahay muxuu ka qabtay xafiisyo muxuu ku leeyahay sidoo uga howlgalaa wadankii waxaanu kolleyba horta imika dee dhowr biloodba weer sanadba weli nooma buuxsamin oo hadduunbuu ururku imikuunbuu waanu kasoo register garaynay sanadkii dhaweed Somaliland oo ururku locally uu ka register garaysan yahay waanu kusoo guulaysanay maasha Allah inaan ka register garayno xafiis temporary-na waanu soo furnay insha Allah imika baanu si weyn aanu doonaynaa inaanu si official xaggaana launching uga sameeyno xafiiska caasimada ka furtay Hargeysa sanadkan iyo gobolada kaleba hadii Ilaahay waqtigu noo saamaxo mudada ururkiinu shaqaynayay inkastoo muddo dheer ahayn maxaad oran kartaa way noo qabsoontay waxaan oran karaa kolleyba waxaan noo qabsoomay horta doorashadii waan ka qayb galnay oo international observerskii ayaanu ka mid ahayn khibrad aad iyo aad u weyn oo nooga soo korodhay waxa kale oo aan u malaynayaa inay noo qabsoomeen waxaanu ka mid noqonay ururkaygu wuxuu ka mid noqday 18 urur oo for the first time UK Somaliland darisa oo dareemay inaanay keli waxba qaban karaynin marka platform samaystay wax qabadkayga ugu weyni reer Somaliland oo meel isugu yimi oo magaranaysa individuals iyo urur raba oo meel ku midoobay ayaa horta anaga aim goalkayga ugu weyn oo ahaa tiina waxaan u malaynayaa inay noo qabsoontay somehow oo aanu
ku guuleysanay inaanu ka mid noqono ururka cusub ee loo bixiyey Somaliland British Somaliland Council oo ay wallahi dad aad iyo aad u active oo maxaan dhahday de Somaliland ay ku weyn tahay for the last 4 bilood ugu dambeysay haddii aanay bishiiba 2 jeer sarkin bishiiba 3 jeer sarkayay si ay ururka u sameeyaan ururkan imika hadii sheegay sidee la aasaasay ma 18 urur ee midoobay ayuu matalaya wadaladii ay isugu imanayeen 18 urur iyo ururada kale reer Somaliland kullu 18 way ka badan yihiin ururada reer Somaliland iyo kuwa kale soo socdaan isla insha Allah fisharka way ku soo biirayaan wadaladii ay isugu iman lahaayeen information ku kala qaadan lahaayeen isku caawin lahaayeen isku ogaan lahaayeen horta imisa urur oo reer Somaliland ayaa ka shaqeeya Europe ama Ingiriiska maxay kala yihiin sidee bay bulshada ugu adeegayaan oo ay gacan isu siin lahayn isuna caawin lahaayeen ta ugu weyn ee maanta aanu malaynayay inay inaga yara maqan tahay na lagu heli lahaa waxa weeye networking iyo information sharing horta bal in la iswar la soo hayo xiriirna la wada yeesho lana kala faa'iideysto oo ururka kale wixii uu magaranaya dee uu kaga khibrad badan inuu ku kordhin lahaa kagana faa'iideysan lahaa wixii ka maqan uu ka ogaan lahaa meeshii la sugu iman lahaa ayaan u malaynayaa inay tahay ilaahayna wax ka baraya in ilaahay dee ku guuleeyo dadka wada ee doonaya daladaas inay hirgasho saafi ururka qurba joogta reer Somaliland ee qaaradda Yurub yuu ku tiirsan yahay uu ka helaa maalgelin so far anaku manugu tiirsan yahay memberska iyaga ayaa maalgelina anaka kharashkayga gelina anaka awoodayda gelina anaka fikirkayga gelina wax caawimo oo aanu dibadda ka helnaa haba yaraatee cid kale aanu ka helnay so far ma jirto laakiin waanu rajeynaynaa inaanu organizationno waaweyn oo reer Yuruba ayaa nala shaqaynaya qolooyinka deeq-bixiyayaasha reer Yurub iyaguna ayaa maxaan dhahday aanu partnership kula jirna ururo hay'ado waaweyn marka waanu rajeynaynaa inaanu insha Allah in the future ka funding aanu helo aanu de shaqooyinka waaweyn ku qabano laakiin waxa project baanu soo wadnaa insha Allah kaas project kaas oo magaceeda kulleeba dad magaceeda aanu ugu magac darnay dan wadaag waayo mashruucan aad soo wadaan dan wadaag baan ugu magac darnay insha Allah waxaan rajeynaynaa inaanu uu noo hirgalo marka funding waan rajeynaynaa laakiin so far anakunba mashruucan dan wadaag muxuu ka shaqeyn doonaa Somaliland insha Allah ayuu ka shaqeyn doonaa sidii reer Somaliland ay u maxaan dhahday bulshada loo bari lahaa danta gudan iyaga ka dhaxayso ana qof kaliya aan ka dhaxaynin aanu qof kaliya lahayn sidii bulshada reer Somaliland la soo gaarsiin lahaa gobolada reer Somaliland aad iyo aad bay u kala dambeeyaan qaar way dambeeyaan oo maxaan dhahday gobolada qaar waxay ku guuleystaan inay wax kasta haystaan inuu dhakhtaradii haystaan iskuuladii haystaan boqol haystaan laakiin iyadoo saa tahay dawladdu intaa way caawisaa gobolada isku sibay u caawisaa miyaanay gobolada dambeeya aynaan oran karin shacabkeeda ayaa dayacay shacabkeedii sidii ay kolleyba yes dawladii waxay qabato waynu garanaynaayo de way wada caawinaysaa isku sibay wada caawinaysaa intii awoodooda ah laakiin bulshada laftarkeedii sidii ay bulshadoodu soo caawin lahayd sax oo maanta haddii aad adigu haysatid sidaad ugala shaqayn lahayd kaa kalena gobolkaa kalena inuu dee waxaanad haysatid waxeedii uu haysto xataa maxaan dhahday waxaa jira dee sometimes siyaasadii Somaliland dee kolleyba siyaasadii dad badani dee iskuma fahmayaan oo siyaasad ahaan laysma soo gaarsiisana Somaliland gudaheedii kulay dadku way kala fikrado duwan iyadoo isku wax la doonayo ayaa hadana la kala fikrado duwan laakiin developmentkii sidee bay developmentka horta wadanka dhan loo gaarsiin lahaa marka la is caawiyo waxay imaanaysaa inay fikradiina isu timaado laakiin haddii aan la is caawinin oo aad gobolkan kala soo gaarsiisnay aan la odhan hold on sidee baynu arrimaha dee aynu ugala shaqaynaa bulshada reer Somaliland degan ee aan waxyaabaha haysanin sidaynu ugala shaqaynaa sidii waxyaabaha sidii wadajir wax loogu qabsan lahaa waxa laga yaabaa fikraduna hadhow isu imaan lahayd laakiin haddii la kala dambeeyo dee fikradina way kala dambaysaa runtii sax haddii development ahaan la kala dambeeyo fikradina way kala dambeynaysaa
saafi ururkiinu dumarka reer Somaliland khaas ahaan muxuu ugu talagalay dumarku waa laf dhabartii bulshada horumarkan way u baahan yihiin inay ka qayb qaataan ururkiinu ma jiraan mashruuc ugu talagalay dumarka reer Somaliland and yes insha Allah waxaan noo qorsheysan inaanu tareerino insha Allah aanu u diyaar gareyno dumarka sidii ay sometimes waxa la yiraahdaa had iyo jeer marka xagga siyaasadda noqoto iyo xagga development-kaba waxa la dumarka waa inuu haddii aan wax la siinin dee iyagu alashan isma hadday xagga politics-ka noqoto isma foodayaan isma caawinayaan marka umana haysto in wax loo diidan yahay ay jirto oo maanta waxa aniga igu haboon inaan qaban karayo dee uma malaynaan nin daba fadhiisanayo oo odhanayo ma garanaysaa ninkaasaa wixii diidaya ama nin baan waxba ii ogolayn wixii aad adigu qabsan karayso waxay ila tahay bilaadan human dee inaad qabsan karaysid bilaadannimo markaas sidii kolleba empowerment bano sidaan dumarka u empower garayn lahayn ee ay maxaan dhahday uga qayb qaadan lahaayeen waayo sometimes meelaha qaar markaad timaadid miitanada qaar ama shirarka qaar waxaad arkaysaa 30 nin iyo 4 naagood oo ma garanaysaa 4 dumara iyo 30 nin markaa kolleyba fikraddii dumarku inta badan waxay had iyo jeer nimankeenu anigu aan idhaahdaba ay u fail garoobaan sometimes waxay maskaxdii dumarka ka maqan waayo haddii isleeg yihiin oo ay contributionkii inputkii ay leeyihiin wax la isku darsanayo ideadaydii laga yaabaa dee ideadii dumarku inay sometimes tininkaba ay ka fiicnaato marka hadday ka maqan tahay dee bulshadii dibadhac weynba ayaa imanaya markaas sidii ay qaybahoodii meelahoodii ay u buuxin lahaayeen waan ku tala jirnaa insha allah dee in the future-ka sideed uga caawinaysaan marka in siday u buuxin lahaayeen kolleyba waxa weeyaan inaanu dumarka oo keliya shirar badan imika waxaa noo qorshaysan inaanu hablaha reer Somaliland meel kastaba Somaliland ka yimaadaane in aanu isugu nimaadno bal miitino anaka noo gaar ah sidii aan society-ga dee qaybteedii uga qaadan lahayn haddii ilaahay ka dhigo oo halkan ah ingiriiska ah Somaliland insha Allah waxa laga yaabaa inaan qabano sanadkan dhexdiisa iyadana waxay gelin fara badan ayaan doonayno ka sameeyno horta dumarka iyaga ay sidii ay bulshada qaybtooda uga qabsan lahaayeen horumarka dalka iyaguna ay dumar ahaan day isu caawin lahaayeen oo ay hadday inaan maanta doonto inay golaha deegaanka isu soo taagto inaan la odhan loo baryin war ha loo jara in yaroo kooto ha loo sameeyo oo waliba iyaga ma garanaysaa oo inantii gabadhu foodaba ay weedo weer 90% Somaliland votersku ay dumar yihiin markaas sidii ay dumarku isu buuxin lahaayeen isu caawin lahaayeen inanta active-ka ah shaqaynaysa fikradaha wacan haysata wax soo kordhin karaysa inaan la niyad jabin la yiraahdo go ahead dumar ahaan baan kugu caawinaynaa oo aan ma garanaysaa dee ay wixii ay dumarka xaq ugu lahayd uga hesho sax ma hayado dumara inay waliba xaqeedina nin qaato laakiin waxaan oran karnaa haddii iyagu isku duuban yihiin xaqooda lama qaateen sidaasanu ka shaqaynayna wax laynoo diiday maaha wax dumarka loo diiday maaha wax rag ugu talagaleen maaha waxa weeyaan annaka ayaan qaybtayadii aanu lahayn qaadanin marka sidii aanu qaybtayada u qaadan lahayn ayaan falowgeed qabanaa taana waxa weeye mid dumaro shirar dumaraa iman doona beri dhow oo dumaro keliya isugu yimaadaan maxaan dhahday bal de fikrada iyaga laftarkaygu isku dhaafsano sidii bal aqbalaada hore marka ugu horeysa bal siday u iman lahayd inay marka hore dumarku isaqbalaan inay difference samayn karaan society-gana wax kusoo kordhin karaan positive haddaan ku noqdo tii hore ee tiri doorashadii Somaliland ee golaha deegaanka waad ka qayb gasheen ururkiina waxaad ku jirteen dadkii international observers ama dadkii goobjoogayaasha caalamiga sideed u arkaysay markay doorashadu socotay talabaad goobjoogayaasha caalamiga ee adduunka ka socday idinka yaa idin diray wallahi daad waa su'aal fiican anaka istirnay cidna dirtay ma jirto Somaliland dhowr jeer hore
doorashooyin badan ay ka dhaceen maanaan joogin ururkayga waxaanu go-aan ku qaadanay inaanu this time bal ka qayb galno doorashada annagaa isfangaraynay annagaa tigidhadeeda la baxnay annagaa ka qayb qaadanay markii aanu xaggaa tagnay runtii leyd baanu tagnay oo iyadoo ay trainino badan baa la siiyey oo dadka international qoladii international ka timi iyo localkiiba waxa la siiyey 2 week baan u malaynayaa inay in la siiyey training tababar la siiyey sidii ay shaqadooda u gudan lahaayeen taa waanu ka dib dhacnay oo maanan gaadhin dabadeetana intaanu international kii join garayn lahayn qoladii dibadda ka timi waxaanu go-aansanay inaanu local organization maxaa domestic observerskii localka ahaa oo aan rabnay runtii anaku balde ogaano daakhligii anaku door bidnay inaanu balde internationalka waxba kama faa'iidinay kuwanaaba local ahoo ma garanaysaa sidaan u fahano somaliland systemkeeda qoladaasanu la join garanay urur weyn dalad weyn oo maxaan dhahday somaliland ka jirta maxaa la yidhahdaa ururka waxaa la yidhaahdaa sonsef ayaanu maxaan dhahday aanu join garaynay aan ku biirnay wallahi intii aan doorashada joognay runtii waxyaaba amazing oo alaanka maskaxdayda aan kasii bixin baan runtii kusoo arko aad iyo aad u wanaagsan maxaa ka mid ah waxaa ka mid ahaa bulshada reer somaliland siday ugu diyaar yihiin siday heerkay dimuqraadiyadii un baan anugu maqli jiray somaliland waa dimuqraadi bad laakiin dimuqraadigii baan soo taabtay waayo dadkii foodayey absolutely dad dimuqraadiya ba ahay oo qof waliba xilisa saaray inuu subaxdii soo kaco halkan aynu joogno dad fara badani maba foodaan haddee rabaa wadankan dimuqraadiga ahee hore u maray salaadii soo ka laheen kiyuga sidii waxaan aad iyo aada ugu soo qashuucay siday kiyuga ugu jiraan iyadoo iyadoo cidi aanay khasaba xataa aan dee aanay cidi ilaalinaynin oo eegaynin waxay samaynayaan siday kiyuga ugu jireen qof u riixaynin qof waliba uu habi ku yahay intuu doonaba ha taagnaadee inuu sugo waqtigiisii uu qof walba qofka kala siinayay time uu ku soo codeeyo siday doonaan ba ha u soo codayaan marka bulshada reer somaliland baan aad iyo aad uga soo halay yar iyo weynba saafi pageka aad ku leedihiin internetka ama websitekiina waxaa ku qoran inuu ururkiinu raadinayo ictiraafka somaliland ictiraafka somalilandna 20 sano ay jirtayba dowladihii isbedelay way raadinayeen meelo badanna way u galeen idinku xageed ka raadinaysaan haddii aan su-aashaasi kaagaga jawaabo tan su-aashaa kaaga jawaabo waxaanu doonaynaa inay qaataan bulshada reer somaliland ee especially qurbaha ku nooli positionkoodii ahaa inay iyaguna ictiraafka wax ka raadiyaan because dowlad keliyii yes dee dowladdu waa shaqadeediiyo dee way raadinaysaa oo way raadinayaan way wadaan way raadinayaan laakiin annagu sidee baan u support karanaa maanta ingiriiska xaafadan deganahay halkan oo kale kaba soo qaad xaafadayda magaalada london aan ka deganahay dadka joogaa siday iigu ogaaneen inaan somaliland darahay sidee baan somaliland jiritaankeedii uga dhaadhicinaa bulshadana aanu la joogno annagoo aan cidna ka baqaynin confidence haysana sidaanu bulshadii ama ha ahaadaan professionals ama ahaadaan mbiyada aanu dee maxaa mbiyadayada ama ha ahaadaan other politicians cidday doonto ama bulshada caadiga ah qofka Europeanka caadiga ah ama ingiriiska sidii aanu uga dhaadhicin lahayn somaliland inay wadan jira tahay somaliland inay deserve garayso inay ictiraafkeedina hesho marka waxa weeyaan shaqadii dawladdu haysay ayuun baan anakuna in terms of aan support garaynayna aan ku caawinayna de wixii awoodayda ah waayo de dawladdu imika ictiraafkan aanu maxaa la yiraahdaa demonstration kan Europe ka socda ee aanu for the last couple of days aanan guryaha iga bawro haynina hebelo soo kacay aynu tagno aynu xagaa qabano aynu ka shaqaynayno de dawladdu warna ma hayso waxaad wadankiina u qabanaysaa waxaan wadankayga u qabanayno marka sida qofka dawladda ah wasiirka madaxweynaha Somaliland ee sharafta mudan
wasiirada reer Somaliland iyaguna sharafta mudan shaqaalaha reer Somaliland siday xilka ay u hayaan ay wadankooda ugu hayaan ayaan anigoo Somaliland dara xil dawladii u haynin sidaas oo kale xaq la iigu leeyahay inaan aniguna qaybtaydii ka qaato marka reer Somaliland inta dawladda u shaqeysa mooyaane intii kale hadaynu iska farfadhiisano inuu dhahno ictiraaf ma raadinayno dawladii wax badan ma samayn karto laakiin dawladii la caawiyo oo meel walba aanu ka qaylino oo meel kasta tagno oo calankeena la isticmaalo we need bulshada reer Somaliland waxay u baahan tahay inay helaan ictiraafkoodii dee laga yaabaa inay timekii noo soo dhaweysto ay dawladda 10 sano ku qaadan lahayd laga yaabaa haddii bulshadu xil iyaguna is saaraan gaar ah marka waxaad ma leedahay dawladda Somaliland 20 sano soo jirtay dawladaha waaweyn iyo qaramada midoobay iyo midowga Yurub meelahaasi soo hordhigi jirtay idinku shacabkaad ka soo galeysaan anagu xaqii shacabkan ka soo galeynaa xaqii individualist ah calankayga marka nimka halka intaan hagoogto umada meelaha maro some people oo ku weydiinayna what is this waxaan rabaa inay ogaadaan waa Somaliland calankeedii sida calamada kale loo garanayo dadku ay og yihiin marka xaqii yes iyagu waxay wadaan xaqii waaweynid meelaha waaweyn anaguna xaqii yar yar ay bulshadanu ka soo galeynaa oo fikrad wanaagsan inay bulshadiina ay dawladahoodii ku qasbaan sax qofka voterka ah ee maanta Britishka ah ee kamida society-gan ku noolnahay hadduu yaqaano wallahi dadkaas waa dad deserve gareeya in la siiyo calankoodii MPyadooda bay ku qasbayaan iyo baarlamaanadoodii awareness anagu waxaan wadnaa waa awareness isnadan ictiraaf keenayno laakiin inaanu ogeysiino dadkan dibadda la joogno saafi ugu dambeyntii waa maxay ururka qurba joogta reer Somaliland ee qaaradda Yurub qorshihiisa soo socda qorshahayaga dhow ka fog haddii aan u yara kaadiyo ka dhow ka hadlo qorshahayaga dhow waxaan qorsheysan inaan bisha 6aad wadankii tagno haddii Ilaahay nafta noo daayo oo aanu ka qayb qaadano diiwaangelinta ballaaran ee wadanka ka socota wixii dee karankayaga ah naga soo beegma aanu ka qayb qaadano iyo maxaan dhahdayay 2 shir oo midna Somaliland insha Allah ka dhici doono midna halkan ka dhici doono oo aan doonayno inaanu isugu keeno reer Somaliland gobolada reer Somaliland oo dhan shir ay wada dhanyihiin oo ay kaga tashanayaan debal sidii aan horumarka wadankooda sidii aan ay uga wada qayb qaadan lahaayeen qorshahayaga fog sidii aanu meel isugu keeni lahayn gobolada reer Somaliland insha Allah meel ay ku wada tashadaan fikirkoodana ay isku weydaarsadaan wadankoodana ay wax ugu qabtaan si wada jir ah ayay qorshahayaga fogna u yahay haddii Ilaahay nala qabto insha Allah Ilaahay waxaan ka rajeynayaa Ilaahay nala qabto sax saafi aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mar kale sida wanaagsan ee barnaamijka noogala soo qayb qaadatay waa tahay daawadayaal waxaan maleynayaa inaan soo gaadhnay gabagabadii barnaamijkeeni arrimaha bulshada oo caawa ay martay inoogu ahayd Saafi Faarax oo ah afhayeenka ururka qurba joogta reer Somaliland ee qaaradda Yurub intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa aniga iyo martidayda sharafta leh iyo Jamaal Xasan oo qaybta farsamada noo fadhiyay sidaa iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh